وحاول سومالان حكومي ما يصو صول سنة جيعان يميل المهنة الدقاتهم عليكم ورحمة الله وبركاته آدم والسلام عليكم المدة الصوماليات مركز صار نقدر ونكسان كارهان أنت من المدة الصوماليات سأل أولا وحنا لكم نقام هاد علينا إياه إذا ماذا حقو دركا هي الولا كده هم بقى أنا إن معايو إن ما أفلق دينيو ما فانيو حاول قلبت واحد بان كهذا ليا أو كوبن أولا حاج شيطان كوسوان إذا ما أظفر أبدا أو هرتيه يا برجر أو كاوات بدن كوسوان دجال كنا سانوجنا هاي وحود دافلي هاي كوتش عادي قلبت حين دي شيء يا تا واحد سببه عاوي حاجة تا سراكيل البانتا والله دارتي إنه هجاميان إذا ما ظهرتي أما كور البانتي سراكيش ياسو ما هيان شقادي الله المضي يا هيد أنا أقول لكم هلجن كيسة سوق روح بدن وحاول يفرفعون كلها هنتاي أو حقوق قبتان أما هو جامية يجوا هرده dadka shacabka ah ee masaakiinta ah guryaha ka qaxeen waxaan leeyahay hormaatadeen iyo caruurteen hooyooyinka umulaha guud ahaanba dadkii 2 milyan oo dhow ah gobolkan ka qaxay ilaa geedaha iyo roobka ay dhaxanta ku garaacaysa iyagoo umula leh iyo caruur yar yar leh iyagoo hooyooyin leh iyagoo curyaan leh iyagoo nooc kasta leh waxaan leeyahay dadka masaakiinta waxaa weeye idinkaa u saraakiile awoodda maanta gobol ku sugan hadday hoggaan dhaba hesho oo hoggaamiya waxaa weeye Somaliland 2 casho yaa laga saarayaa gobolada SSC maalin la dhaafiyo arcadeey iyo maalin hog la marinayo 2 casho laga saari karaa awoodda yurta gobolka Sool ee ciidanka ee beelaha harti iyo habargidir waxaan leeyahay warmada reyaalow waxaa weeye ragna inuu buuraha seexdo oo dhaxantu garaacdo ragna guriyihii maatadu ka qaxday inay seexdaan ama sidar oo waliba kuwii loogu talagalay inay hoggaamiyaan ciidamada xaqu-dirirka ay seexdaan guryaha waa nasiib dar waxaan leeyahay sida waxa laga bedelo Somaliland waa ka awood badan waa ka ciidan badan waa ka tababar badan oo waxa weeye dalka inaga leh si walba uga awood badan waxa la nimayo dhulkaan ku dagaalano haddii kale waadee maxaa tisariiray maatadu ka qaxday iyo guriyada maatadu ka qaxday la hurdayna dalmada reyaal awalba dumarka iyo Somaliland waa shiidayeen ta haloo baneeyo waxaan soo dhaweynayaa guud ahaanba dhalinyarada kasu dhammaan ka soo gala gashay waxa way halgankan u timi ee ka soo gala gashay Somaliland Puntland waxa weeye Soomaaliya iyo maamulada kale ay ku jireen ee maanta qarre ku shahiideen qarre wali ka sii dagaalamayaan jidada hore ee dagaal ka socdo waxaan isna halkan uga mahad celinayaa hala taqayo كرن ما يداف يا حدق مية حدق يا لا أنت وتشرسه هل كان حنوجا مهد علينا يا تريه إن هيستلك حنوجا مهد علينا يا تريه عيدا كعروين هيستي أحمد داق وسنا حالتي إسكع السلي وحسوا لا نهي السود ويني سشرف
waxaan sidoo kale halkan uga tacsiyeynayaa mujaahidiintii ku dhintay dagaalkii muddada dheer ka socday gobolka ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo guud ahaanba waxaan sidoo kale aan leenahay u ducaynaynaa inta ku dhaawacantay waxaan leeyahay ilaahay ha idin boogadhayo meel kastoo aad ka dhaawacanteen waxaan sidoo kale halkan baaq uga dirayaa dadka weli ka mid ah Somaliland dadka weli mid ka ah ee u dagaalamaya waxaysan garanayn waan sharaftooda ahayn oo waxa uu cisiga iyo karaamadooda iyo sharaftooda iyo qadiyadooda iyo waxa weeye midnimadooda kullidiya gobolkana waxay ka geystaan aan ognahay ka garab dagaalamaya waxaan leeyahay $114 sharaftaada ha u iibsan iyo magacaaga iyo masabkaaga waxa weeye Somaliland xukumi mayso sool sanaag yacan iyo meel maanta degatoon ha ku sharafeen adoo ka xun baad ka soo baxaysaa adoo ka xun baa lagu qabanaya waxa weeye chance baad haystaa chance aad sharaftaadii kaga daba tagtaad haystaa chance aad maanta kaga mid noqotaad haystaa sharaftaadii chance aad ku soo ceshataad haystaa waxaan leeyahay ka soo bax iska kale Somaliland si degdeg ah gobolkan looga saaraya iska kale wara ku ceeboomina wara ku dhimanina wara ku dhaawacanina waraga khayrkiina maanta tan nala jooga jiidan ugu la dhimanaya nala dhaawacmaya dhaxanta nala jooga waraada inta badan waxa ka timi halka aad joogtaan waxa garteen miyaad garan weydeen war iska kale